kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal mar kale iyo maqal kale halka naga dhageysanaysaan waa Mir podcast 14 February iyo waxaan isku beegnay qoraal oo Cabdi Saciid leeyahay oo la yiraahdo falsafada jacaylka dhageysa habboon. maanta waa 14 Febraayo waa maalinta jacaylka. Sida aawadeed sadarrada soo socda waxaan wax yar ku gorfayn doonaa falsafada jacaylka. waa hubaa in akhristayaal badan ay isweydiin doonaan waxay tahay aqoonta iyo khibradda gaarka ah ee aan u leeyahay jacaylka ee fursadda ii siinaysa inaan ka hadlo. been alla caayay ma jirto khibrad gaar ah oo aan jacaylka u leeyahay, laakiin yaa yiri jacaylka waxaa ka hadla kuwa aqoonta iyo khibradda u leh. runtii jacaylka waxaa ka hadla kuwa aan khibradda u lahayn. kuwa khibradda u lihi jacaylka kama hadlaan, waxna kama qoraan, ee waa ku noolaadaan. dunida oo idil suugaanta caashaqa ah waxaa curiya kuwa caashaqa ku fashilma. cilmi boodhari haddii uu jacaylka khibrad u lahaan lahaa oo uu ku guulaysan lahaa gabayo jacayl ah ma uu tiriyeen, ee jannada jacaylka ayuu aayar iska durduuran lahaa. ninkii Soomaaliyeed ee la weydiiyey hebelow xaaskaagu waa qolama waa kii ku jawaabay war sidan isugu raysanayba maaniga yiri aabaha waa kuma. wadaadkii ibnu Xasmi al-Andalusi oo noolaa 994 ilaa 1064 ciise dabadii buuggiisa ku shaqoolayda duqul xamaama oo lagu tiriyay inuu yahay kan ugu quruxda badan buugta carabiga lagu qoray ee jacaylka ka faallooda. bilowgiisa wuxuu ku leeyahay jacaylku diinta munkar kuma ah, shareecadeennuna ma reebin, maxaa yeelay qulubtu waxay ku jirtaa gacanta eebaha sharafta iyo weynaantu ay u sugnaadeen. waxaana wax jeclaaday qaar badan oo ka mid ah khaliifyadii hanuunsanaa iyo imaamyadii toosnaa. alxubbu laysa bimunkari fi diyaana walaa bimaxduura fi shariica. إذا القلوب بيد الله عسى وجل وقد أحب من خلفاء المهيدين والأئمة الراشدين كثيرا. erayga jacayl wuxuu ka mid yahay erayada dareenka muujiya kuwooda loogu adeegsiga badan yahay, taasoo jirta haddana waxaa la yaab leh in uusan jirin qof si buuxda u qeexi karaa waxa jacaylku yahay. sababta arrinku sidaa u noqdayna waxaa lagu sheegay in afka iyo dareenka meelo kala duwan laga xukumo. afka ama luqadda waxaa lagu maamulaa dhanka bidix ee maskaxda, halka dareenka lagu maamulo dhanka midig ee maskaxda. sidaas darteedna dareenka iyo erayada la doonayo in la cabiraa si buuxda isuguma dhigmaan. qofku wuxuu awoodaa in uu dad kala duwan mid kasta ku yiraahdo waan ku jeclahay, isagoo oo dareenno kala gedisan dadkaas u haya. tusaale ahaan waalidka, walaalka ama walaasha, widayga ama saaxiibka, xaaskaaga, caruurtaada iyo walxo kale ayaad sheegtaa in aad jeceshahay, laakiin jacaylka aad dadkaas iyo walxahaas u haysaa isku nooc maaha, hal macno oo isku mid ahna kuma laha. taa waxaa weeliyay in alaaba jacaylka lagu qeexay inuu yahay dhaqaaqa wadnaha, oo waa tan fanaanada Farxiyo Fiska ay ka cabanayso dhaglaynta wadnaheeda. dareenka jacaylka ee wadnuhu la dhagleeya ma laha heer sugan, balse sida iimaanka ayuu kordhaa ama yaraadaa ama gebi ahaanba guuraa. jirkayga, fakarkayga iyo duruufahayaguba si joogto ah bay isu bedelaan. isbedelkooduna wuxuu keenaa isbedelka dareenka jacaylka ee dadku ay wadaagaan. Griigii hore jacaylka waxay u qaybiyeen 7 nooc, carabtuna waxay gaarsiiyeen 13 darajo iyo waliba ka badan.
sida dad badan og yihiinna jacaylku waa indhoole aan la saadaalin karin. Ka hadalka jacaylka waxaa loo khushuucaa marka afka iyo dareenku ay isu soo dhowaadaan. Sababtaas darteed baana fanaanka iyo gabyaagu ka hadalka jacayl uga badsadaan faylasuufka. Fanaanku wuxuu caashaqaa quruxda, faylasuufkana wuxuu calmadaa runta. Fanaanku wuxuu ka duulaa sheeko xariirta tiraahda labada caashaqa wadaaga bilowga hore xagga alle ay ka mid ahaayeen, dabadeed waxay ku kala tagaan uurka hooyooyinka. Laakiin jacaylka ayaa midnimadooda asalka ahayd mar kale dib ugu soo celiya, oo jacaylku qadar hore oo aan la baajin karin buu ku dhisan yahay. Tusaale ahaan, sheeko xariiraha Gariiga midooda waxay sheegtaa in ruuxa aadmiga ahi asalkii hore ee abuurkiisa uu lahaa 2 madax, 4 gacmood iyo 4 lugood. Laakiin goor dambe ayaa Ilaah u carooday oo 2 u kala dhambalay. Dhacdadaas ka dambeeyay, dadku waxay bilaabeen in ay raadiyaan qaybta ka maqan. Waana halkaas meesha hilowga jacaylka dadku ka soo jeedo, oo qofka wax jecel waa dhaawac qayb jirkiisa ka maqan baadigoob ugu jira. In xilku sidaas yahayna waxaa daliil u ah sida labada isjecel ay hab isu siiyaan, isu dhunkadaan. Dhunkashada iyo habsiinta waxaa looga dalinayaa in qaybta ka maqan lagula midoobo. Ummadaha oo idilnaa labka iyo dhediga iscalmadaa waxay ku tilmaamaan in ay isdhammaystirayaan. Faylasuufka runta calmaday isagu sheeko xariirahaas ma liqi karo, oo wuxuu ku qasbay inuu weydiin ka keeno. Runtiina dad badan baa u haysta in falsafada iyo jacaylku aysan shaqo isku lahayn, balse sida dhabta ah falsafadu sida uunka kale bay wax u jeclaadaan. Isla markaana mowduuca jacaylku saami weyn buu ku leeyahay baaritaanada falsafada, maxaa yeelay ereyga falsafad macnihiisu waa jacaylka runta ama jacaylka xikmadda. Qoraalada maraajicda ah ee loo noqdo marka jacaylka laga hadlayana waxaa ugu horeeya buugga Martiqaad, The Symposium, ee uu qoray faylasuufkii Gariiga ah ee Plato. Martiqaad waa madal ay isugu yimaadeen dad badan oo ay ka mid yihiin falaasifo, gabiya iyo hal-abuur kale oo dhammaantood ka qayb qaadanaya dood ku saabsan mowduuca jacaylka. Tusaale ahaan, weydiimaha falaasifadu ka doodeen waxaa ka mid ah: jacaylku ma wax macno leh mise waa ismoodsiis dadku u baahdaan? Jacaylku ma janna mise waa cadaab? Ma liibaan mise waa hoog? Jacaylku ma naf hurid mise waa naf jeclaysi? Dhanka kale, marka qofku uu sheegayo in uu qof kale jecel yahay, qofka ma qof ahaantiisa ayuu jecel yahay mise sifo iyo wax kale oo uu ku arkay buu ku jecel yahay, sida caqli ama maal, qurux iyo wixii la mid ah? Guud ahaan, falaasifadu waxay isku dayaan in ay jacaylka caqliyeeyaan, laakiin sida dadka badankoodu ay og yihiin, jacaylku waa nooc sixirka ka mid ah oo dhankiisa caadifada ayaa ka badan dhankiisa caqliga. Waxaana la sheegaa in uu sakhrad iyo suuxdin leeyahay. Xaqiiqadaas falaasifadu waa og yihiin, laakiin waxay isku qanciyeen in mowduuca wax laga dheefo marka si fiican loo lafaguro. Jacaylka sidii uu ku tilmaamay gabyaaga Carbeed ee Maxamuud Darwiish, uu yiri: beenteena runta ah, alxubbu kadibtuna saadiqa. Taa awgeed, jacaylka ugu macaan waxaa wadaagi kara 2 aan isu dhoweyn ama xitaa aan isaqoon. Gabayada iyo sheekooyinka jacaylka ah ee ugu quruxda iyo quluuda badanna waxaa alifay wadaadada suufiyada. Suufigu wuxuu gabay u tiriyaa jacaylkiisuna waa alle uusan weligii u arag, sida walxaha maadiga ah loo arko. Ugu yaraan, arrinkani wuxuu rumoobayaa wadaadada suufiyada ee 3 diimood ee Ibraahimiga ah: Yahuudiyadda, Masiixiyadda iyo Islaamka. Waxaa taa dheer in jacaylka suufigu uu damac ka maran yahay, oo suufigu alle uma caashaqo janno uu ka dalbanayo ama ciqaab uu ka cabsanayo darteed, ee wuxuu u caabudaa in eebbe uu cibaado iyo caashaq mudan yahay oo keli ah. maa cabadnaaka khawfan min naarika walaa damcan fii jannatika. sidaas awgeed waxaa la yidhaahdaa ciddii doonaysa in ay jacaylkoodu uusan marna dhadin waa in ay marmar ama xataa abidkeed ay ka dheeraataa cidda ay jeceshahay, oo ay badaha gadaashooda dhambaalo dhaadheer isaga soo laliyaan. dabcan farsamada casriga ah ee codka iyo sawirada sida fudud la isugu diri karo, arrinkaas waxbay ka bedelaysaa
oo jacaylku in uu raago iyo in uu dhaqso ku burburo labadaba waa ka qayb qaadan kartaa. Filasuufkii Bernard Shawna waxaa laga hayaa in uu yiri waa doqonnimo in laba isjecel ay isguursadaan. Oraah mar lagu sheego xadiis marna lagu sheego murti carbeedna waxay tiraahdaa ha lagu jeclaadee booqashada yarayso. Zur qibban tastad xubban. Soomaaliduna waxay tiraahdaa haddaad ammaan rabto waa la dhintaa ama waa la dheeraadaa. Waxay ku warrameen in xaajigii Juxa ahaa uu jeer dhaxdin hotel degay. Shaqaalihii dhaxdinta ayaa waxay ku yiraahdeen soo dhow waxaadna ogaatay in wax kasta aan u samaynayno si aad u dareento inaad gurigaaga joogto. Juxana wuxuu ugu jawaabay fadlan sidaa ha yeelina waayo gurigayga waxaan uga soo tegay si aan maalmo uga carragadisto. Ma doonayo inaan dareemo in aan gurigayga joogo balse waxaan doonayaa in aan dareemo in aan joogo dhaxdin nabad ah oo xeeb qurxoon ku taal. Halkan qoraaga ayaa iska hadlaya oo soo gelinaya in isaga ku saabsan. Wuxuu yiri waxaan xasuustaa in aan mar aan safar ku jiray aan garaacay taleefankii xaaskayga laakiin waxaa iga qabatay wiil aan dhalay oo markaas 12 jir ahaa. Kolkaan wax yar isweeraysanay buu wuxuu igu yiri aabba istaji. Weedii uu adeegsaday waxay ahayd aabbo calm down. Maxaa jira ayaan idhi. Shalay lee naga tagtay ayuu wiilkii ugu halceliyay. Haddaan shalay idinka tegayna waxaad ii waraysanaysaa sidii aan muddo dheer ismoogeyn ayuu wiilka yidhaahday. Markaas baan ku baraarugay inuu igu jiray dareen tabid ah oo aan mar hore wixiisay. Suugaanta jacaylka ah kuwa ugu filka weyn waxaa ka mid ah heesta Bible-ka lagu xusay ee lagu magacaabo heesta Saleeman Song of Solomon. Heestan inkastoo ay Bible-ka ku soo aroortay haddana waxaa lagu doodaa in hees diini ah aysan ahayn ee ay tahay hees caashiq ah. Heestan ninka caashiqu ayaa isaga oo tilmaamaya qofta uu caashiqay ayuu wuxuu ku leeyahay waxaad tahay ceebka Saliim, there is no following you. waxaana la rumaysan yahay in 7kii Saleeban ka hor ilaa iyo maantada la joogo kuwa wax caashiqa ay tilmaantaas adeegsadaan. Jacaylku sida la isla qiray wuxuu leeyahay in dhala'aan muddo la arki waayo nusqaanta cidda la jecel yahay. hase ahaatee xaqiiqadu waxay tahay in uusan jirin insaan ceebka Saliimahi oo ruux kasta wuxuu leeyahay nusqaan lagu dhaliilo waana midaas sababta dhalisaa ku faakaca jacaylka ku yimaada. jacayl aan marna cara lahayn lama wadaagi kartid qof aad aqal wadaagtaan oo jikada iyo suuligu ay idinka dhaxeeyaan waayo ma jiro qof mar walba malaa'ig ah oo innaba wax la aqoonsada aan samayn. qofka doonaya inuu helo jacayl aan saacadna isdhimin waxaa la gudboon inuu alle ama cid dhimatay uu midkood caashiqo. labadaas baa laga yaabaa in caashiqoodu uusan nusqaan yeelan. alle iyo duulka dhintay sida aad doonto baad ula tacaamuli kartaa maxaa yeelay labadaasi taageero kaagama baahna. laakiin dadka nool sidaad doonto ulama dhaqmi kartid waayo dadka nooli waxay u baahan yihiin taageeradaada. eebbayo qofkii xijaabtay haddii aadan muddo xasuusan marka aad xasuusato ayaad xiriirkooda soo ceshan kartaa iyaga oo aan ku dareensiin inaad xumaysay. laakiin dadka nool sidaas lagama yeeli karo oo caro iyo xisaabtan bay nafta kaaga qaadayaan. xiriirka dadka nooli wuxuu u baahan yahay taxadar iyo feejignaan joogto ah haddii kale waad isa seegaysaan. taa macnaheedu maaha in dadku xun yihiin balse dabeecadda aadanaha ayaa ah in uu yahay noole aan dhammaystirnayn oo baahi iyo cillado leh una baahan in la taageero. taa awgeedna ma jiro qof kale baahidiisa si joogto ah u haqabtiri kara oo mar kasta ka farxin kara. aanna xasuusanno in xaasaska ambiyada hawliyada boqorada iyo xitaa ilaahyadu aysan cabasho la'aan ahayn. ruuxa akhriya taariikhda diimu wuxuu ogaanayaa in ilaahyadii ummadihii hore sida kuwii Greek iyo kuwa weli Hindu caabudaan ay xaasaskoodu ka cabsan jireen. barbaarta ku fakaraya inay helaan gabdho aan in lahayn waxaan kula talinayaa in ay sugaan xuralciinta aakhiro maxaa yeelay iyaga ayaa lagu sheegay in aysan lahayn wax la aqoonsado ama la saluugo. barbaartu iyo qalad iga fahmin oo u qaadan in romansiga oo dhan aan duminayo. romansiga waa loo baahan yahay laakiin waxa buugta iyo filimaanta romansiga ah ay ka waramaan iyo waaqaca dhabta ah ee nolosha ka jira waa kala duwan yihiin. qays iyo Laylo
Romeo iyo Juliet, Khasra iyo Shirin iyo khiyaar kale oo badan oo romansiga dunida caan ku ahi waa khayaal ka turjumo baahida iyo rajada dadka, laakiin runta dhulka ka jirta kama ay turjumaan. Yeelkadeed nolosha oo dhan baa dhib ah. In nolosha lala halgamaana waxay ka dhigan tahay in la isku dayo in dhibka lala qabsado. Jacaylkuna noloshaas dhibka ah ayuu qayb ka yahay. Sida noloshu harjadka u tahay buu isaguna harjad iyo halgan ugu baahan yahay. Taa awgeed jacaylka midho dhalka ah ee ifka lagu arkaa waa midka lagu mintido ee maalinta ku xigtana dib u bixiya. Waa jacaylka markuu duugoobo dib isu cusboonaysiiya. Xaqiiqadiina waxaa nolosha dhadhanka iyo quruxda u yeela waa jacaylka. Ruux walba wuxuu halgan ugu jiraa si loo jeclaado. Waxaa nolosha iyo geeridu ay ku kala gedisan yihiin waa jacaylka. oo qofku waxbuu jecel yahay ama waa mayd socda aw man kaana maytan faaxiinaahu. waxaana la yiraahdaa qofku jacaylka ka hor waa walax, markuu wax jeclaadana waa wax walba, jacaylka kadibna waa waxba yahay. filosoofkii Alberto Camusna waxaa laga hayaa inuu yiri haddii aan akhlaaqda buug ka qori lahaa waxaan qori lahaa buug 100 bog ka kooban 99 iyaga oo maran baan ka tegi lahaa. bogga ugu dambeeyana waxaan ku qori lahaa anigu waxaan aqoonsanayaa hal waajib oo qura, waana in wax la jeclaado. I recognize only one duty and that is to love. jacaylka dadku sheegto badankiisu waa nooc loogu yeero jacaylka kalluunka. waa ruux danaysi dabada ka riixaya, laakiin jacayl aan carabka dhaafaysnayn ku ugaarinaya. sida la wariyayna nin kalluunku cashaynaya baa waxaa la weydiiyey maxaa kalluunka u cunaysa. ninkiina wuxuu ku jawaabay maxaa yeelay kalluunka waan jeclahay. markaana qofkii su'aasha weydiiyey baa wuxuu ku yiri kalluunka waad jeceshahay, waana sababta midda kugu bixisay in aad biyaha ka soo saarto oo aad shiisho dabadeedna aad cunto. ha ii sheegin inaad kalluunka jeceshahay, waxaad jeceshahay naftaada. kalluunkuna dhadhan macaan buu kuu leeyahay, saas darteedna waxaad diyaar u tahay inaad disho oo aad cunto. inta badan jacaylka dadku sheegtaa waa noocaas loo yaqaan jacaylka kalluunka. wiil ama gabar ayaa wuxuu arkayaa qof cajibiya oo ugu muuqda in uu haqabtiri karo baahidiisa jireed iyo tiisa nafeed. markaas wuxuu la soo boodaya hebel ama heblo waa jeclahay. ma jeceshahay mise danbaa kaa gashay? ma adiga ayaa taada ka fikiray mise qofka kale dantiisa iyo waxa uu rabo ayaad ka fikirtay? qofkaas wax wadaa jacayl ma aha ee waa hunguri. qofka kale ayaa wuxuu ugu muuqdaa in uu yahay jaranjaro uu dantiisa ku gaari karo. qofkaasi wuxuu jecel yahay naftiisa. jacaylkiisuna wuxuu la mid yahay midka uu sheegtay qofka kalluunka u malabsanaya. waa jacayl la mid ah kan waraabuhu wananka u qabo. filosoofkii Friedrich Nietzsche oo jacaylka wax badan ka yirina wuxuu ku dooday in dadku qofka ay ku andacoonayaan in ay jecel yihiin ay u arkaan sida alaab ay leeyihiin oo ay doonayaan in ay u maamulaan sida badeeco ay suuqa ka soo iibsadeen oo kale. jacaylka dhabtahay waa bixin. waa in qofka kale sida uu yahay iyo waxa uu jecel yahay aad ku ogolaato. dhibkuna ma aha in aan lagu jeclaan, laakiin waa in adigu aadan wax jeclaan. maxaa yeelay jiritaankaaga ayaa ku xiran in aad wax jeclaato. To be is to love. nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ka waramay jacaylka uu u hayo afadiisa Khadiijona wuxuu yiri waxa la igu irsaaqay jacaylkeeda in yarsuqto xubaha. waxaa xusid mudan in falaasifada qaarkood ay ku doodaan in alaaba raggu ay galmadood daneeyaan halka dumarku alaaba ay jacaylka daneeyaan. sidaas darteedna dumarka la'aantood dunidu jacayl kama jireen, oo jacaylku waa hawl xooggeeda ay haweenku qabtaan. weeraha tilmaanta wanaagsan ka bixiya jacaylka waxaa ka mid ah oraahda Ingiriiska ah ee fall in love. waa oraah si run ah uga turjumaysa macnaha jacaylka. jacaylka runta ah waa lala dhacaa ee lama duulo. jacaylku farxad uma aha sida Spinoza uu sheegay, laakiin sida Aflaatoon sheegay jacaylka xanuun baa wehelin kara oo ifka laguma helo jacayl nabdoon oo khatar ka maran. falaasifo uu ka mid yahay Schopenhauer waxay qabaan in jacaylku uu yahay dabin dabeecaddu u dhigto dadka si taran u yimaado, bini aadamkuna u waaro. dhanka kale weeraha marin habaaminta xambaarsan marka mowduuca jacaylka laga hadlayo waxaa ka mid ah weedha Ingiriiska ah ee jacayl samayn.
making love iyada oo la tilmaamayo galmo samayn. Oraahdani waa sarbeeb, laakiin waa sarbeeb dhaawacaysa fikradda jacaylka. Galmadu waa qayb muhiim ah oo nolosha ka mid ah, laakiin kolka mawduuca jacaylka si guud loo eego waxay noqonaysaa wax aad u yar. waxaana lagu kaftamaa haddii aad doonayso fikradda jacaylka inaad baabiiso biology ahaan u fasir. culimada cilmiga noolaha ama biology-gu jacaylka waxay ku macneeyaan inuu yahay shaqo si mechanic ah uu jirku u qabto, love hormone. laakiin dadka badankooda ambiyada iyo abwaanada ayay ka jecel yihiin Darwin iyo xertiis. dadkuna inta ay fuliyaan wax maskaxdoodu u sheegto in ka badan waxay fuliyaan wax dhaqanka iyo diinta ay u sheegaan, oo inta ay garaadkooda tixgeliyaan waxa ka badan inta ay doonista bulshada tixgeliyaan. waxaa jira laba ujeedo oo xiriir loo sameeyo. ujeedada hore ee xiriirka loo sameeyaa waa in ciddii xiriirka lala yeelanayo laga rabo in wax laga helo. ujeedada labaadna waa in cidda xiriirka lala yeelanayo wax lagu darsado. marka cidda xiriir lala yeesho si wax looga helo, xiriirkaasi jacayl ma dhalo ee danaysi aan waarin baa laga helaa. laakiin marka ujeedada xiriirku ay tahay in wax la wadaago, noloshu waa wanaagsanaataa oo waxa la gaaraa liibaan iyo guul lagu naaloodo. jacayl ha raadin ee adigu jacayl noqo. marka aad jacayl raadiso niyad jab baad la kulmaysaa, waayo cid naftaada ka baxsan oo ku siin karta jacaylka aad raadinaysaa ma ay jirto. hase haatee marka aad adigu jacayl tahay oo aad diyaar u tahay in aad dadka kale wadar iyo waaxid baad adigu ugu deeqdo farxad iyo jacayl, waxaa dhici karta in dadka kalena ay jeclaadaan in ay jacaylka iyo farxadda kugula dartaan oo sidaas ay wax kuugu biiriyaan. waana tii la yidhi gacmo isdhaafa waa galladii ka dhalataa. aan qalinka dhigo hadalkana kusoo gunaanada oraahda Mahatma Gandhi ee tiraahda maalinta awoodda jacaylku ka qaali noqoto, awoodda ayaa dunida nabad arkaysa. The day the power of love overrules the love of the power, the world will know peace.